بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قيمها يقدرين مدن meel kastoo caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqeynta siyaasadda oo maalinta Talaadada ah habeenka Arbacada soo galayso saacadu marka ay tahay 8 fiidnimo aad ka daawataan telefishinka Somali Cable studio waa magaalada Muqdisho farsamo yaqaan Caylaawe Cabdiraxiin Caylaawe iyo Cabdulqaadir Umar Cabdulle Fiidka iyo cameramanada kale studio telefishinka Somali Cable ayaa gacan weyn ka geysan doona qaabka programka u socon doonaan halka studio telefishinka Somali Cable ee magaalada London ay noo joogaan farsamo yaqaan Cabdisamad Bashir Bocor iyo farsamo yaqaanada iyo cameramanada kale ee studio Somali Cable ee magaalada London daawadayaal waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa sida aad la socotaan muran iyo khilaaf badan ayaa ka taagan mooshinkii laga keenay gudoomiye Jawaari sida aan toddobaadadii la soo dhaafaba ku xuseynay waxaa loo maleynayay in uu moshinku qaboobay kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliya soo dhex galay maalintii habeennimadii Sabtida ahayd saq dhexe aan iraahday Sabtigu markii soo galay 3 iyo barkii habeennimo ayaa madaxweynuhu warqad soo saaray oo leeyahay dib ha loo dhigo hase ahaatee waxaa socota hadda mid kale oo tii ka duwan oo Sabtigi lamid ah iyadoo maalinta barita ana la filayo in xildhibaanada isugu tagaan golaha sida fariimo loo soo diray ay qeexayaan xildhibaanada haddaba waxaan idin xusayaa xildhibaanada igala qayb galaya iyo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta igala qayb gali doona waxaan ku bilaabay dhinaca midigta ah xildhibaan Cabdi Cali Xasan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa igala qayb gali doona waxaa dhexda fadhiya ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa fadhiya waxaa kaloo dhinacayga soo xiga xildhibaan Zakariya Xasan Sheekh Cali dhammaantood waxa ay si degan oo dastuurka iyo nidaamka waafaqsan u qeexi doonaan qaabka mooshinkan la isugu haysto aan ku bilaabo xildhibaan Cabdi Cali Xasan xildhibaane markasta horta anigu waxaan jeclahay inaan dhinaca midigta ka bilaabo mar walba sida islaamka uu qabo waxaan rabaa marka mooshinkii waa la isku khilaafay waa tii madaxweynuhu soo dhex galay maxaa haddana mar kale soo celiyay oo berito keenay in mooshin la geeyo doodii bilaabato maxaa soo celiyay ugu horeyn annaga kooxdii mooshinkan keentay waxaan ognahay annaga madaxweyne nalama hadlin annaga waxaan ognahay gudoomiyaha kumeel gaarka ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Ibrahim Sheekh Mudey inuu fariin noo soo diray inaan Sabtida u ballansanayn mooshinkanagii uu daabacan yahay warqadihii ay qoran yihiin shaqadii baarlamaanka Sabtida iyadoo la iclaamiyay madaxweynuhu wuxuu ka codsaday gudoomiyaha kumeel gaarka ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka inuu maalinkaa u baajiyo Sabtida fadhigaas uu baajiyo sababta uu u baajiyay anigu de ma aamini karo waxa idaacadaha iyo fadhi ku dirirka iyo la sheegayo annaga gudoomiyaha kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka wuxuu noo sheegay madaxweynuhu inuu fadhiga ka codsaday uuna isku dayi doono in ay wada hadal siiyo asaga iyo gudoomiyihii mooshinka laga keenay ay wada hadlaan madaxweynuhu dabcan waa ilaaliyaha isku hayaha midnimada dastuurka iyo shacabka Soomaaliyeed wuu codsan karaa in hal fadhi loo baajiyo sida uu u codsan karo inuu baarlamaanka ka codsado inuu hortooda inta yimaado la hadlo waayahay laakiin madaxweynaha sida gudoomiyaha baarlamaanku sheegay madaxweynuhu laba dhinac inuu isu keeno doodsiiyo arrintu ma ahayn ma sidaasaa la doonayay laakiin ma dhicin buu gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wuxuu yiri aniga dhowr marba wuxuu yiri iscazil marka madaxweynuhu ma waxay ahayd inuu iscazil dhaho mase waxay ahayd in uu labada dhinac inta isugu yeero hanaanka sharci maro horta waxa aad sheegaysta hadda adaan kaa maqlaaya annaga haddaan waxa suuqa aan maqlay anna aan kuu sheego dhinaceena Jawaari inuu madaxweynaha inuu horta Jawaari asagaa wuxuu qabtay saxaafadeed qabtay wuxuu codsaday madaxweynuhu inuu soo dhex galo isagoo 30 xildhibaano ay la fadhiyaan
oo yiri madaxweynihii aad tahay na soo dhexgal na kala hadal hadduu soo dhexgalayo madaxweynuhu waxay ahayd inuu la hadlo labada dhinac madaxweynaha markuu u yeeray oo ay iswareysteen guddoomiye jawaari saa hadda sheegayso wararka suuqa haddaan anna kuu sheego waxaan ka maqlay madaxweyne markay wada fariisteen wuxuu yidhi haddee 192 xildhibaan oo aan ognahay inay meediya hadda ku jiraan magacyadooda inuu yidhi 192 kaa keentay 182 loo baahan yahay haye maxaan yeelnaa gudoomiye jawaari asaa wuxuu yidhi anaa iscasilayo waxaa isiisaa ha dee warka adiga hadda adiga ani ma joogin goobtii adiga waxaa ii sheegaysoo kale dhinaca kale wixii suuqa aan suuqa ka maqalnay way ma garan sidaan aniga afkiisa ka maqlay maxaa la yidhahdaa madaxweynaha jawaab uu ka bixiyeyna ma hayno noomana yeelin annagii mooshinka keennay jawaari isagaa madaxweynaha codsaday asagay is arkeen waxay ku wada hadleen ilaa hadda isagaa madaxweynaha wax ka dalbaday madaxweynuhu haddii uu leeyahay iscazil sabab uu dhaho iscazil ma jirto waayahay waxaan siinayaa xildhibaan zakariya xasan sheekh cali xildhibaan bal waxaad ka warantaa macnaha sida uu sheegayo berito waa la balansan yahay fariimihii horta maku soo gaareen oo baarlamaanka in la isugu tagayo berito ha iyo maya keliya dheh fariimaha horta nidaam lagu soo diri jiray baa jira haye nidaamkii si aan ahayn baan waa kugu soo diray nambardan ka heli jir nambar aan ahayn ayaa fariimo keena ku celi bal fariin waa soo gaartay fariintaas waxaa ku qornayd kusimaha guddoomiyaha haye aniguna ma garanayo goorta xil kusime la magacaabay baarlamaanku wuxuu leeyahay guddoomiye wuxuu leeyahay guddoomiye ku-xigeenno saaxiibkeena se hadda aan maqlayay wuxuu ku sheegay guddoomiye ku-meel gaara waddanka uu kasoo gudbay waxa la yidhaha ku-meel gaar golaha shacabka hal xilli buu ku-meel gaar yeelan karaa waa marka u horeyso baarlamaanka lasoo doorto intaysan dooran guddoomiye rasmiya waxaa sii jeer garaynaya shirarkooda si ku-meel gaara xildhibaanka ugu da-da weyn marka hadda xilligan guddoomiye rasmi ayuu golahu leeyahay meel xilkii looga qaaday oo guddoomiye ku-meel gaara lagu magacaabayna annaga ma ogin marka haddii aad fiiriso kulanka berito ka sokow guddoomiye baarlamaanka wuxuu leeyahay madaxweynihii wuxuu yidhi iscasil arrintaasi guddoomiyaha ma kala hadasheen wax oo arrimo kale oo sources badan ma haysaa guddoomiyaha sida hadda aan saxaafadda ka maqalnay wuxuu sheegay in laga codsaday inuu iscasilo waxaan ognahay kulankii ay ahayd inuu dhaco sabtigii waxaa baajiyey madaxweynaha sababta madaxweynuhu u baajiyey waxay ahayd waxaa la isku hayay sharci dastuurka qodobo dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka ah ayaa la isku hayay muranka horta qodobadaasa hareeyey madaxweynuhuna waa ilaaliyaha sharciga xaq buu u leeyahay inuu yidhaahdo wixii sharciya ha la soxo si aan qallaacso siyaasadeed loo gelin arrintii oo ma garanaysaa loo baajiyey sidaasay ahayd waxaan marka filaynay in heshiis laga gaaro qodobadaas oo saaxiibadeen garabka mooshinka wada oo iyagu dafirayay dastuurka inuu madaxweynuhu ku qancin doono inay dastuurka usoo laabtaan oo xeer hoosaadka ay aqbalaan oo guddoomiye jawaari haddii xil laga qaadayo looga qaado si sharciga waafaqsan annagu ma difaacayno shaksi waxaan difaacaynaa waa sharciga xildhibaan kasta ama mas-uul kasta markii xil loo dhiibo wuxuu maraa dhaar waxaana lagu dhaariyey inaan dastuurkan ilaalino waajib bay nagu tahay qodobka 61 ee dastuurka wuxuu qeexayaa xildhibaanku marka uu howl shaqo uu fulinayo waa inuu u qabtaa sida danta qaran ku jirto ma aha inaad howl ama mooshin ha ahaato ama wax kala ahaatee aad u qabataa sida dan shakhsiya inaad ku qanciso inaad u qabato ma ah way aad baa umahadsan tahay ambassador cabdiraxmaan nuur dinaare ayaan rabaa inaan siiyo marka aad eegto labada dhinac waxyaabaha isku hayaan dhowr arrimood baa ugu muhiimsan mid waaba soo baxday oo guddoomiye jawaari wuxuu ku doodayaa in dhinacii kalena aan lala kulan siinin markii madaxweynuhu uu soo dhex galay iscasil mooye wax kale la ima dhihin oo madaxweynuhu ima dhihin buu yidhi tan labaadna waxaa la isku hayaa berri haddii la tago waxa dhici doona markaad dastuurka fiiriso ama aada nidaamka fiiriso madaxweynaha maxaa la gudboonaa markii uu sabtidii hakiyey kulankii la filayay in dhibaatadu ka timaado markuu hakiyey maxaa la gudboonaa madaxweynaha
بسم الله الرحمن الرحيم حسن وما سنتهاي انت انا كجوابين ارنت كسابسن مدحوينها وحي لا غدبون waxaan rabaa inaan anoo matalayo bulshada rayidka ahna diblomaasi in muddo ah kusoo jiray siyaasadda Soomaaliya inaan idin la wadaago dareenka ay dadka Soomaaliyeed shacbiga Soomaaliyeed noocyadiisa kala duwan dibad iyo gudo ay qabaan waxaan rabaa xildhibaan Zakariya iyo xildhibaan Cabdi Cali inaan la wadaago waxay qabaan dadku dareen aad u walwal badan dalkan 27 sano wuxuu ku soo jiray colaad qax barakac dunida loo kala qaxay dadku maantay waxay ku dhibaataysan yihiin dalalka dariska waxay ku dhibaataysan yihiin dibadda dhammaantood caawa waxay qabaan walwal dareen culus qabaan waxayna ka qabaan kulanka berrito la isugu imaan doono waxaana taas dhaliyay waxaad garan kartaa markuu madaxweynuhu soo farageliyay ee uu ku dhawaaqay in la joojiyo inay dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ay si weyn u soo dhaweeyeen waxa loo soo dhaweeyana dadka Soomaalidu waxay rabaan nabad waxay rabaan dawlad waxay rabaan cid duruufaha adag ay maanta ku sugan yihiin cid ka gudbisay rabaan ma rabaan ishaysad ma rabaan in ay dhalato colaad ama ay ka dhalato dhibaato la mid ah waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego anigu waxaan ahay nin waaya araga waxaan u soo joogay colaad fara badan waxaan soo qaadanayaa 1990 bishii December waxay ka bilaabatay meesha la yiraahdo Sinai anoo markaas reporter soona ka tirsan ya booliiska waxa loo diray inay baaraan Sinai si fududa waxay ku bilaabatay xabad waxa la dilay nin booliisa markiiba waxa isqabsaday xabadii waxayna keentay tan maanta 27 sano ama 28 sano in dalku burbursanaado waxa xigay Cali Mahdi waxaan xasuustaa Cali Mahdi maalintuu anoo markaas wariyihiisa gaarka intuu u yaro wuxuu ugu yiri waxaan ka rabaa inaad sii deysid war nin janan oo aan rabin hadda inaan magaciisa meeshan ka sheego in la magacaabo waxaan u sheegay u gudbi waxaana madaxweynaha waxaa jira dareen culus كداها مجعبين دي بوديجو وحي دلين كرتا عولاد ما أنتي مركي لقول رواق استوديها مركان وركي جاي وأن كسي داي حبض دوي بلابت وحي قصبت علم هذه إن جورجيس أو كقه وحي الشيء أفرتي بلو دجالكي لأوجا بهاشو سداسي أسعون يساب وهالربع اللي بنذا مدحوينها قدوميها برايم مينستركا إن أن أشيغو دتك الصوماليات ولول بدني أرنتان كقبا haddii aad fududaysataan colaadu si fudud ku bilaabataa waxaysan noqotaa mid aadan berrito idinku aadan damin karin mas'uuliyadeena waxa qaadaya xildhibaanada waxa qaadaya gudoomiyaha waxa qaadaya madaxweynaha waxa qaadaya prime minister dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin waxaan ku tukaday masaajid ninkii sheekhu wuxuu yiri war ha laga hadlo oo ha lala hadlo oo ha lagu biiriyo cod waxaan aniga ku biirina codkaas anoo dadkaas oo mujtamaca Soomaaliyeed kuwa dibadda ku nool oo dhibaataysan ogaay kuwa gudaha ku nool oo ku dhibaataysan ogaay waxaan leeyahay yan lagu fududaan wax colaad keeni kara yan lagu fududaan kuwa maanta aaminsan in colaadu ay wax samayn karto colaadu wax ma samayn karto berritana gacantooda ka baxaysa waxaan ku celcelinayaa arrintaas ha laga fiirsado intaas ku aad baad ma santahay ambassador walwalka uu muujiyo waad aragtaa haddii berrito ilaaha uu diro ogolaado xildhibaanadii mooshinka ka soo horjeedayna ay qalabkooda waxooda urursanayaan kuwii maaragtay ayaga xukuumadda lagu tirinay inay wado lagu tirinayana muudayna oo macna hormuudka u yahayna ay berita intay tagaan meeshii la isu wada qalab urursanayo maxaa ka soo bixi karo natiijada islaad horta mid waxaan ka jawaabay walaalkay xildhibaan Zakariya arintii uu gudoomiye ku meel gaar oo ka soo baxnay gudoomiye ku meel gaar macnaheedu ma ahan dawladda federaalka oo ku meel gaarka aan ka hadli jirnay gudoomiyaha Jawaari oo intaan mooshinka laga keenin gudoomiyaha baarlamaanka ahaa qodobka 9aad farqadiisa 2aad iyo qodobka 9aad farqadiisa 1aad waxay sheegayaan haddii gudoomiyaha oo meesha ku fadhiya mooshin laga keeno muxuu noqonayaa qodobka 2aad wuxuu sheegay gudoonka waxa ka keeni kara tirada ka keeni karta qodobka 5aad wuxuu leeyahay gudoomiyaha
eedeysan waa in laga wareejiyaa guddoominta fadhiyada ay ka maxaa la yidhaahdaa inta ay ka dhammaanayso mooshinka doodiisa. isla qodobka 8aada wuxuu leeyahay guddoomiyaha golaha shacabka marka uusan qaban karin xilkiisa ama xanuun ha noqoto ama mooshin ha laga keeno sida qodobka 9aad uu sheegay waa laga wareejinaya soo ma dhihin sabab kasta ha ahaatee way waxaa dhammaan hawshiisa fulinaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad. marka guddoomiye ku-xigeenka koowaad guddoomiye ma noqonayo jegadiisu waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad asagoo guddoomiye ku-xigeenka koowaad wuxuu noqonayaa guddoomiye ku meel gaara inta ama jawaari guddoomiyenimadiisa ee usoo laabanaysa dooda oo la geliyey guddoomiyenimadiisa sida sharciga uu qabay ka baxayso horta saasaa ku meel gaar ka dhigtay dowladnimada iyo ku meel gaarkii laga soo baxay maaha. midda kale oo dareenka uu ka muujiyey saaxiibkay ambassador Dinari uu ka dhawaajiyey dareenka shacabka horta waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibkay ambassadorka u sheegaya annagu dad hub wata manihin annagu waxaan nahay shacabka waxaan nahay matalayaashii shacabka waxaan nahay dad shibil ah waxaan nahay dad aqoon-yahano ah dad mas-uuliyiintii ugu sarreysay ee dalkaana annagaa doorana madaxweynaha annagaa ansixina xukuumadda iyo mashruuceeda waxaan nahay dad aan hubhaysan ayaga la ilaaliyo golahanagana waa golo dad shacab ay caqli iyo fakar iyo dood ay wax ku wadaagaan marka meel aan xabad iyo aan isu qaadan anu ma garan karaayo hal su'aal maashadan wax dhex gashto wax haddii la iskhilaafo sharciga lagu kala baxaa haddii guddoomiyihii baarlamaanka uu taagan yahay war haddii aan xal la keeni karin walba intaan tagno oo sanduuqeeni meeshii geysano hab sharci aan ku kala baxno oo beesha caalamku ay fadhiso maxaa diiday ma lahan horta adiga hadda mid waxaa ku bilowday haddaa xasuusato waxaa tiri dastuurkeena iyo xeeroosaadka baarlamaanka iyo shuruucda kale ee dalka noo taala iyo wixii caqli kale oo isku zaa'idin karno barnaamijkii culimada maanta uu kasoo dhageystay saaxiibkay ambassador Dinari idaacadaha wararka aan ka maqlay annagu ma nihin dad dhaga xiran oo qol inta kasoo baxa baarlamaanka aada idaacadahan iyo dareenka shacabkii kulligeen waa dhegeysanaa dadkiina soo doortaa nala soo hadla waxaasoo dhan dad ogaanahay marka hoolka ay galaan dooda marka ay sameynayaan u naxaaya shacabkoodii waa ogyahay Dinari xildhibaan markii ugu horreysay mihi dalkan waxaa imid anoo oo dagaalkii joogin qurba jooga nolol fiican haystaan dalkaa imid markii ugu horreysoon imid niman qoryo haysta oo zoo haystaa dalkaan joogay maantana waxaa maraynaa meel amniga taas waxay celinayni sanduuq miyaa lagu kala baxayaa oo macnaha sida uu guddoomiyuhu raba sanduuq cod ah oo la yiraahdo jawaari intaana ka keentay mooshin intaana ridaysay intaan buu rabaaye mise gacan taag baa la rabaa maxaad samayn doontaan adinka dhinaceena kasoo horjeeda guddoomiyaha in la rida raba niyahow sharcigeenna wuxuu u qabaan rabnaa muxuu qabaa qodobka 19aad wuxuu sheegayaa 3 nooc oo cod bixin ah haye gacan taag haye sanduuq iyo u yeerid mid la dhaho oo qoraal ah oo inta lagu yeero magacaaga tik la siinayo anigu waxaan u codeeyay saas aa leedahay sida ku qoran qodobka maxaa la yiraahdaa dastuurku wuxuu sheegayaa sanduuq marka la dooranayo macnaheeduna waxaa waaye marka la dooranayo dad kala duwanaa la dooranaya gacan taag lagama dhigi karo qoraal lagama dhigi karo sababta loo leeyahay waxaa waaye sanduuq ilaan dad kala duwanaa dooranaysaa sida kaliya lagu kala dooran karo waa in sanduuq la geliyaa dad kala duwan laakiin marka qof aad ama waa ridaya ama leedahay ama hal mashruuc haa iyo maya loo codeeya waxa ugu fudud oo lagu doorto waa gacan taag haddana saasoo tahay waxaa qoran dastuurkanaga in marka laga hadlaayo qaabka doorashada isla qodobka oo 29aad farqadiisa 3aad ayaa sheegaysa sanduuq haddii laga guuraayo oo loo guuraayo codbixinta kale 10 xildhibaana soo jeedinaysa ama guddoomiyaha dalban kara waa la bedeli karaa laakiin anigu hadda ma ku dhahayo saasaa loo codeynaya xildhibaan Zakariya waxaan rabaa in la fahmo waxaa la isku haystaa in sanduuq in cod la bixiyo dhinacyadu iskuma haystaan laakiin waxaa la isku haystaa haddii meesha la tago ma sanduuq baa lagu rida sidii lagu doortay miyaa la rabaa hadda 3 meelood 2 meel in sidaas oo kale u dhacdo adoo dastuurka adeegsanaya ilaan qodobuu soo adeegsaday maxaa tilmaamaya in aan cod gacan taag macnaha lagu ridi karin ma maasan tahay horta waxa la isku hayo waa 3 qodob
oo buuq ka taagan yahay mid waa midka hadda aad sheegaysa oo qaabka codbixinta u dhacaysa ah midna waxa weeye awoodda uu hadda sheeganayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo ah inuu yahay kusime midda saddexaadna waxa weeye muddada uu moshinku uu jiri karo saddexda qodob horta la isku hay waa saddexdaas markaan ku hormaro qodobka muxuu ahayto oo hadda aad weydiisay oo ahaa codaynta waxaa ka hadlaya dastuurka qodobka 60 iyo shanaad ee dastuurka ayaa si cad u qeexaya wuxuu leeyahay gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waxaa codayn qarsoodi ah ku doorta codaynta qarsoodida waa midda warqadda lagu qoro oo sanduuqa lagu rido oo qof meel soo codaynaya la garanayo madaxweynaha lagu doorto gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waxaa codayn qarsoodi ah ku doorta aqlabiyadda tirada guud ee baarlamaanka xilkana kaga qaada 3-2 marka codayntii qarsoodida ahayd ayaa marna tira muxuu ahayto aqlabiyad ah oo tirada guud baarlamaanka hal dheeri ah ayaa marna lagu dooranaya marka xilka laga qaadayana qarsoodidii baa loo qaadaya oo ah 3-2 isla qodobkaas aan ka dhaco tan hore marka la dooranayo waa sanduuqa waa cadiya ana ku jira kan dambe marka oo laga hadlaayana 3-2 la leeyahay 3-2 saddexda cod waa lagu dooran karaa isla qodobka dastuurka hadda akhrinay aniga ma diidani waxa weeye 3-2 laba kaliya codka looga qaadi karaa fiidi waxa weeye taagmiya qoraal miya sanduuq miya ma qeexna dastuurka xeeroosaadkana waa qeexaya oo arinta waa fasiraya ana ku jira warka waxa weeye codaynta waa qarsoodi labada goorba marka la dooranayo iyo marka xilka laga qaadayo waxa kala duwan waa tirada marna tiradu waa hal dheeri oo waa aqlabiyad marna waa 3-2 tirada guud ee baarlamaanka waa marka xilka laga qaadayo sidaas horta kala jumlada full stop ma u dhaxaysa mise maxaa u dhaxaysa furjada koma ku jirta ha xilkana waxay cadeynaysaa ee u laabanaysaa waa cadaf waxay u laabanaysaa gudoonkii la soo sheegay iyo xilka qaadistii jumladaas oo macnaha ula jeedo codbixinta qarsoodida ahayd ay u laabanaysaa waxaa qeexaya marka aan ku cadeeyo waxaa qeexaya xeroosaadka mar labaad sii sheegaya qodobka 9aad ee xeroosaadka farqada labaad xarafka e gudoomiyaha ama ku-xigeenadiisa gudoomiyaha ama ku-xigeenada laga keeno soo jeedin mooshin xilka qaadis ah waa in laga wareejiyo gudoominta fadhiyada inta ay ka dhamaanayso arrinta la xiriirta soo jeedinta codayntuna waa qarsoodi ma garatay laba xugun buu ka hadlay meeshaan mid waxa weeye waxa laga awoodda laga qaadayo gudoomiyaha mooshinka laga keenay awoodda laga qaadayo waa inta mooshinka laga doodayo fadhiga ah ma gudoomin karo wax kale oo cad oo awood laga qaaday ma jirto gudoomiyuhu wuxuu leeyahay 10 awoodood 10 xil buu leeyahay qodobka tobaad baa sheegaya mid kamid ah laga qaaday ma garatay arrinta labaad oo la isku waxaan ku cadeyn karnaa qodobka 8aad oo xilka qofku la wareegay kulli awoodihii waa laga qaaday isla qodobka 8aad farqada koowaad akhri qodobka 8aad farqada koowaad akhri ma uu soo laabanayna waxaan rabaa ambassador Tinari waa nin sidii wax loo dooran jiray wax badan la socda marka waxaan rabaa arrintan la isku hayo oo jumladan oo la leeyahay xilka qarsoodi cod hal dheeri ah ayaa lagu dooran karaa xilkana waxaa looga qaadi karaa 3 meelood 2 cod ah qarsoodigaas marka ma la jeefiyaano banaan baa muxuu cod gacan taaga hadii la doono mise wixii baa isku cadfano baltaa noo fiir waa maasantahay xasan arrinta laga hadlaayo ma qeexna hadda sida uu xildhibaanku Zakariya sheegay koma meeshii ku jirta haddana qaabkii ma sii qeexin xeer hoosaadkana waxa way isagana inuu qeexay tahay waxaan rabaa marka inaan ka hadlo ma aha qaabka hadda ay wax u socdaan wax la isku haysto dastuur iyo xeer hoosaad waa caddaan wax jira waana jiri jiray baarlamaanna waa jiri jiray waa la isdooran jiray waa la isridi jiray waa wax soo taxnaa laakiin meesha waxaa ku jira maxay ahayd mahmahdii dhahaysay weedha iyo orgiga maxaa kulmiye
maanta waxay taagan tahay guddoonkii baarlamaankii inuu kala qaybsamay baarlamaankii inuu kala qaybsamay in baarlamaankii mas-uuliyaddii ay madaxdii baarlamaanku lahayd inay maanta miidihii ay isu marinayaan fariimo in shacbigii ay walwal iyo la geliyey waxaa muuqato in baarlamaanku ay awooddii iyo jiritaankii sovereignty ama qarannimadii iyo dowladnimadii in maanta ay si fudud gacanta uga bixi karto mar haddii baarlamaankii waa saldhigga dowlad waa baarlamaanka haddii baarlamaanku maanta uu marayo waxaan dhegaysanay guddoomiyihii wuxuu ku hadlayay waxaan dhegaysanay guddoomiye ku-xigeenkiisi wuxuu ku hadlayay guddoomiye ku-xigeenkii labaad wuxuu ku hadlayay guddoonkii waxay ku hadlayeen waxaa muuqato inay lumiyeen baarlamaanku hadduu sugayo in dowladnimada ay dadka soomaaliyeed ku maalaan ee loo dhiibtay in ay iyagu ku heshiin waayaan in dastuurkaasi qofna uma exanayo xeer hoosaadka qofna uma exanayo laakiin meesha waxaa ka maqan nin walba sida hadda uu sheegay xildhibaan zakariya xildhibaan cabdi cali nin walba wuxuu qaadanaya qodoba soo qaadanaya wadaadadan waxaa maqli jiray marka ay rabaan in ay wadaadadu marka ay rabaan xadiis wuxuu kuu soo qaadaa ضعيفة مثل لو حكوسو قذا حديث كانوا ليه هو حديث جرا سيدا أسرع أقرب أفسره دينت أنك أرجع دتك صومنا ذو مد بسيدو رب أفسره هذا حير كان هو قدومي سي أفسره قدومي كحين كي سي أفسره لا بحد لما نفرد ذكري وحلا فرد عدل نول حير كهلا وكهلا يا دستوركي سيدو أسرع رب أرجعنا وحا ماشاس موقته إن يسوقيان إن لو يري أول يرادو وحول متين أما سيدي كمبارا كود أي تماو أما أنت لو يري أي instructions قالوا أي سيان تاسنا وح كل ما يسو جريتان كي دولة نماذج صومالية وحنلاقي هاي أرنتاس هاللجو أنتو أنت صار واي هاي لا وحكيليون ربنا وحويان إن سيدا واقع وقبا مايا سيدا واقع وقبا وحوي إن دستور كان والوجسه رقمي قدومي ياشي هراء مركي للدورني أما حلال لقى قاضي ما وحي أحد قاعد تاجمه وحلوقة قاضي جري مثل الدستور كالطلع إيجو عطقر السعودية لو قلت دورة جري عطقر السعودية لو قاضي جري واجي أرجع ما هذا مرحلة بدنا يسوي مرتباشا وبرلمانتيريان أنت أن أتجنا مرة أنا فيانها مرة سفيرها مرة وزيرها مرة بدنا أتجنا وهشو برلمان كصومالي ذا والله جيفيا برنان لجوجيا برنان waxaan xasuustaa in xil looga qaaday nin gudoomiye ah tiro aan jirin oo baarlamaanka aan fadhin in xil looga qaaday haddii ay baashu tiyo kala noqonaysana waxaan leeyahay laga joogo baashu waxay u baahan tahay buugaas iyo xaashidaas xeerka iyo dastuurka ku taal haddii ay dacad jirto waa lagu wada dhaqmi karaa waliba waxaa jira dad aqoon-yahana oo Soomaali oo culimo iyo isugu jira aqoon-yahan kale oo elite oo waxaan kala shaqeyn karna baarlamaanka waa haddii ay dacad jirto laakiin waxaan arkaa aniga isjijiid waxaa kaloo ii muuqda labada dhinac in gudoomiyahana gadaashiisa la fadhiyo ay rag xildhibaano fadhiyaan oo ay leeyihiin hayeelin dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka koowaad ay rag kale iyagana oo xildhibaano ay fadhiyaan xildhibaanadu waxay hadda ay isleeyihiin bahashan inta la kariyo mooshinkan waxa ka soo dhaceen laakiin baarlamaankii weynayaan haddaan u sheegay haddii bahashu ay ka joogi waayaan baarlamaankaas lagu kala tagay haddii lagu kala tagana iyagana parliamentarian ma ahaanayaan dalkuna wuxuu galayaa marxalad halis ah waxaan leeyahay marka hal laga joogo arrintaas waayahay waa tahay waa u soo laaban doonaa cidda awoodda leh oo markaas dhihi karta baarlamaanka mar haddii uu heerkaas marayo وبريو كله هدي انت الله يسوق تجو سيدي تطبيق تمنكي محي هاي أبريل ما مثلا ماتش مركي بقات اللي تشوف أوه كراست اللي سردع عيو كله هدي أي نقطة ما ها فائدة إيمانية بريتو هذو حلبان التذكرين وحلبان لابد إنه حدر تانسكو أركتمت هين مو حربتانا كراس سقاطة مايا absolutely حاشا كله نيوه برلمان كاسنا وزيرو كاها صاحب كي مركي لجراعين أو إله أمريكيس حكومة دي كود على جهدين نعطيك الأيضا للنساء هبين مالو يعزومان لفني أنا كسماية وصعد مركا أنا وسياسة وكم مغنى من ده واجس يحد وكل دوين baarlamaankii sideedaad ugu dambeeyay baarlamaan horta isu gacan qaada baarlamaankii sagaalaad arrimahan oo kale waa yimaadeen
shacabku ay xoogaa walwal ka muujiyeen horta marar badan waa markii koowaad awal waxaana lagu eedeynaya xildhibaanadeenu xukuumadda baarlamaankaa saxaya madaxweynaha baarlamaankaa haysto waa saxaynaa le mooshinka keenaya baarlamaanka yaa saxay yaa weri i weydiiyey bishii February bilowgeedii waxaan ku yidhi baarlamaanka laba midaa loo saxaa mid waxaa lagu saxaa 4 sanaba marka la dooranayo shacabkii soo doortay waxay ka rabeen hadday ka waayaan ma soo dooranayaanoo nin kale ay tijaabinayaan ama nin ka fiican ay raadsanayaan markaa baarlamaanka waa la saxaa marna baarlamaanka asagaa isa saxa oo baarlamaanka hadday wax ka qaldamaan macnaheeda hoggaankaa wax ka qaldameen hoggaankaa qaldan oo baarlamaanka wareerinaya markaana waxaa sixi kara baarlamaanka asagaa isa sixi karo hoggaankiisa sixi kara sida uu saaxiibkay ka shaqariyey guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkii inay dagaaleen iswareeriyeen ani waxaan qabaa talaxumada guddoomiyaha way waayo 3 nin oo la doortay waaye inay heshiis ahaadaan oo gacmaha isqabsadaan oo baarlamaankan xildhibaanadiisa hal dhinac u jiheeyaan shaqada guddoomiyahay ahayd mogtahay nina waa liidarkii labana waa inay la shaqeeyaan oo nin hadduu maqan yahay kan boos ka jooga kan kale hadduu maqan yahay kan jooga aniga waxyaabaha lagu eedeynaya guddoomiye jawaari oo mooshinkan looga keenay yaaba waxaa ka mid ah maamulkiisii oo gabay mid kalena waxaan ka leeyahay walaalkay midda uu qodobka 8aad oo iska indhasaabay wuxuu leeyahay guddoomiyaha golaha shacab marka uu qaban kari waayo xilkiisa oo sabab kasta ha ahaatee sida mooshin haddii laga keeno waxaa dhammaan hawshiisa fulinaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad dhammaan hawshiisa ama fadhi ha ahaato ama maamul ha ahaato laakiin midkan xeeroosaadka way xeeroosaadka ma akhrisan maya fiiri maya xasan cadde qodobada way isfasiraan mogtahay waxaa la rabaa mogtahay qodobada sharciga markaa akhrinaysid hal qodob lisagama dhagaado kan koowaad guddoomiyaha in laga qaadayo yuu sheegay mogtahay fadhiyada guddoomiyaha fadhiyada ma ahan fadhiyada kal fadhiga fadhi hadduu la fariisanayo international community hadduu la fariisanayo yaa fasirayo qodobkan kale ciddii xilkiisa lagu wareejiyay yaa waay guddoomiye ku-xigeen koowaad muxuu la wareegaya marka muxuu ninkan kala wareegay qodobkan dambaa fasiraya marka qodobada waa in laisku akhriyo u baahan yihiin uma baahna hal qodob intaa qaadato inaad keligiis la suuq tagto ninkan muxuu kala wareegay guddoomiyihii wuxuu kala wareegayaa dhammaan hawshiisii ayuu la wareegaya dhammaan hawshiisii muddo gaaban uu la wareegaya macnaheedu ma ahan inuu aniga meesha aan rabo in la qeexo ma ahan guddoomiye ku-xigeenka koowaad wuxuu la wareegayo iyo waxaas ma qeexayo aniga waxaan qeexayaa oon rabaa mataqaana in la ogaado haddii xeeroosaadka uu sheegayo cod qarsoodi ah ya waa in lagu kala baxaa dastuurkii wuxuu yidhi macnaha waxaa la isku haystaa halkii senteniis oo dhahaya muxuu ahay cod haldheeriyana ha lagu doorto xilkana ha looga qaado 3 meelood laba ayaa loo kala fasirtay warkanba cod qarsoodi ah la yiri maxaa halka xilkana loo dhihi waayey intaas laakiin xeeroosaadka soo ma fasiro waa kana hadda xeeroosaadka qodobka 29aad akhri walaalkay qodobka 29aad fiiri farqada 3aad akhri fiiri qodobka 29aad wuxuu ka hadlayaa qaababka cod bixinta kana fasiraya markay ma laga bixi karaa mise ma laga bixi karo farqada 3aad waxay sheegaysaa qaabka looga guuri karo cod bixidii qarsoodiga ahayd ee loogu guuri kara qaab kale farqada 3aad akhri asaga afkiisa ku akhri hadda aan ka hadlayno codayntu inay horta qarsoodi tahay waxaa cadeeyay xeeroosaadka iyo dastuurka sabab looga guurana meesha ma taalo soomaalida garan ma laga guuri karaa waxa weeye codayntu inta noocay tahay iyo codayn cayiman baa meeshaan taalla noocyada kale ma yaalaan waxaa taala codayn qarsoodi ah codayn gacan taagna meeshaan ilaan macnaha qodobku ka hadlayo wuxuu ka hadlayaa inta nooc codayn tahay ra'iisul wasaaraha waxaa loogu codayaa gacan taag waa codayn ma garatay muxuu ahaa ii sheegeen arrimo kaloo taagan hadda dbol codayn gacan taaga loogu codeeyay qodobadaas waxay ka hadlayaan codayntu waxa ay tahay laakiin mooshinka markaan taaganahay codayntiisu waa qarsoodi way caddahay qodobka 8aad oo saaxiibkii uu ka hadlayana waxa weeye kama hadlayo wax mooshin la yiraahdo guddoomiyuhu markuu xilkiisa uu gudan waayo guddoomiyuhu ma xanuunsana ma maqna dhimirka mala'a ma awoodi waayin shaqadiisii uu taagan yahay marka there is no reason looga qaado nin hawshiisii u taagan ma jirto halka qodob laga qaaday oo ah marka fadhiga loo fariisto oo laga doodayo arrintiisa taas horta laga qaadaya marka taa ka nimaano waxa intaas oo dhan ka sokeeya yaala waxa ka sokeeya waxay tahay moshinku muddo lahaa muddadiisuna 10 maalmood ay ahayd 10 maalmoodna way dhamaatay saaxiibada inta ay ku warwareegayeen war aan kasii uga guurnaa codaynta qarsoodiga oo aan ka dhignaa gacan taag
sababta gacantaaga horta loo raadinayo in la qeexay u baahan tahay waxay tahay in xildhibaanadii pressure la saaro dhaqaale la saaro pressure xigaalnimo ama ha ahaado nin wasiira oo ehel la ah ama muxuu ahayd mid saaxiibtinimo ha ahaado in cadaadis la saaro lama hayo dareenka xildhibaanka wax lagu qanciyo haddii la hayo wax lagu qanciyo waxay ku qanci lahaayeen codintuni qarsoodi marka arrintan kale aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye muddada marka muddada waxa la isku hayo dhammaan sheegayna shacabkina u qeexnaa rabaa bixinta in hal lagu dheganaado maaha xeeroosaadka waxaan u samaysanay meeqa nooc oo codbixina waddankan ka dhici kara hadi su'aalan ku weydiinaya waxaan ku weydiinayaa xildhibaanada baarlamaanka markay sidaan oo kale ay taagan tahay oo nina uu sheeganayo 100 qof aan haystaa adiguna 200 oo qof aan haysana aad sheegan aad leedahay hadiiba ay sidaa ay tahay si macnaha maxaa qod sanduuqan maxaa loo keenay oo loo yiri shalay sanduuqan waxaa loo yiri in macnaha dad shacbiga Soomaaliyeedna ay ku qancaan maxaa labada dhinac hadayba wax kala sheeganayaan maxaa loo diidan yahay sanduuqa wuxuu doon ha ahaado sanduuqan in lagu baxo si jawaarina oo asagoo u baxo muudayna uu qanco maxaa u diidantiin hal mid oo sahlan ku sheegay maama Soomaaliyeed oo ajirta nin hulaaban inuu wax qarsanaya la moodaa horta aniga hadda in sanduuq lagu qaaday iyo midna ma ogi waxay noqon doonto laakiin waxa kaliya oo aad aan ula yaabanahay waxay tahay wixii sharciga noo qornaa saddexda cod bixin waa la geli karaa sababta anigu xor ah xildhibaan la soo doortay xor ah mabda'a ama jawaari ku taageerayo ama aan uga soo horjeedo xor ah waa sida caawa media u fadhiyo aan u muujinayo ya maalinka cod bixinta markii la gaarana ama anoo taagan aan sheego ama kan qoraalku inta la xaadir Cabdi Cali maxaa qabtaa aan iraahdo mooshinka jawaari in laga qaado xilkan qaba ama waa diiday maxaa qarsanay beri haday dhacdo ila xeeroosaadka noo qorto ani hadda ma ogi waxay noqon doonto haday sanduuq noqotona waa raalan ka ahay haday gacan taag noqotona raalan ka ahay hadii tii isu yeerinto xaadirinta ay noqotona raaliyan ka ahay mana kala jecel laakiin waxa oo qofka isqarinaya ani waxaan garan lahay fiiri asaa walaalkii wuxuu ka hadlay in ay jirto corruption iyo wax uu hadda tuu gelinay أنا وحق بها هدي وحاس جيران وحق قفك إن إنه قاتل ربه يا ربه هدنا إنه إسقارية وقتها إنه هدا حلال تهاي وحول بوي ما دوينا ديار واي أقدر عبد علوم ستة ديناري شعب جاي يورد بالشدة ما دام هذا هذا ليسه هدنا دنك كله عدالة إن لا إيجو وفي عنته إن هدي أد واي أرجع ماذا يأرمها أنا دو فيرسه مدحوينه هو حلم واي أرنتي أو عزل اسمع عزل هاي كسر دمات إن ماشان حكومتنا وين كجرته سيدا حقيقته تاي أو موقتنا حكومتنا وين كجرته هو موقتها برلمان كينا وصان أكره قيبسين ما أنت موحى في عن أو شعب بقى درين كيسو كوقن عكرا إن صندوق لك كانوا لو قنعوا مسوحه كوقن عكرا إن قاعد تاجل يرهدوا تحسن ربعنا كجواب حسب ما صنتهاي أنت أنا متوس وأبارين سؤال جوابتي هذا شعبي جو حرمان هرتا إن وقت كان حلي موشين لكانوا وحليه ما أنت بدن وحق قبان إن أنا موشين كمناسبة هاي إن دتكو ربان دولة دويناش قيسو دولة دتكو تاجر سينهين أي دتكو إبتوين بدن الدبتي جدا كقبان ما أنت مركب حربين إن لو استاجو سيد الدولة دن لو حوجين لها عيدا كالله لسه لها ابني كالله لسه لها ما مول كالله لسه لها دولة كمان كل أردن يرى شقاء يجو أمور لهي وحصل أن يدخل تكسو جاي ما أنت إن يجو إسقاط قبصدان دولة مرة شعبه كم سجين دارين كاس نوي قبل هل كانوا مهم الرمائنا الإفين مهم كوحيت هاي إسهيست كأي إسهيستان مركي واحد جردد سيفل سوسايتي كترسن أو أرنتن isku dayay in ay dhex galaan xog badanna ururiyay waxaa muuqato in ay muuqato kala shaki wax la yiraahdo waxaa muuqato in haddii dad samafalayaal dad aanan waxba ka danaynin oo ka tirsan mujtamaca qaybihiisa kale ma ogtahay xasanow dalku waa la leenahay xildhibaanada dalku waa la leenahay mas-uuliyaddiisa madaxweynaha dalku waa la leenahay مسؤولية البرايم مينستر كولا لنا وحلو أذيجي أو لو قدمينا وشعب كصومالي ده يكون وح إسكالا وشعب كصومالي
haddii marka aan weliba waxaan anoo ku hadlay maanta caaw aan jeclahay inaan u baaqo war ha iska fadhiyina haddaad culimo tihiinna waxaad ka hadli jirteen waxyaabo kale oo minora ka hadli jirteen masiirkii qarankan soo dhismayey dhowrka sano ee loo soo dhibtooday ee kumaan kun oo qof u dhimatay yaa maanta waa arkaysaan marxaladda u maray waxaan rabaa culummada waxaan rabaa aqoon-yahanka waxaan rabaa siyaasiyiintii hore intay isu yimaadaan ay la kulmaan madaxweynaha oo madaxweynuhu gacan lagu siiyo siduu arrintan u xallin lahaa waxaan hubaa in la xallin karo arrintaas in loo dhaqaaqo in aan lagu mashquulin waxaan rabaa in aan lagu mashquulin dastuurka iyo xeer hoosaadkaas uu nin walba si u fasiranayo mid kalena waxaan sheegayaa maalintii ugu horreysaan waxaan dhahay uu bilowday mawshinka bilowday cabdi calan dood ka wada qayb galay waxaan dhahay wuxuu keeni doonaa guuldarro cidna kuma adkaan doonto weli waa ku celcelinaa cidna kuma adkaan doonto guuldarro keeni doonaa waa sii dheeraan doonaa wuxuu hakad gelin doonaa ama uu baralys ka dhigi doonaa jiritaanka qarankan oo han weyn loo qabay uu baabi'in doonaa waxaan leeyahay marka war ka jooga dadkana waxaan ugu baaqayaa inaanay ku fiirsan oo aanay sugin cabdi cali wararka inuu helayana waa u malayna magaaladu waxaa ka jiro wax la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaa is-urursi taasna waxay wax u dhimaysaa jiritaanka qarankan waa usoo dhimanay waa usoo rafaadnay waa weliba waa u dhaawacnay si dalkan uu wax u noqdo maanta marka dadka waxaan leeyahay marka shacabku maadaama shacabku u hadlaysid ha ku fiirsan shacbigu maadaama hadlaysid shacbigu ma waxay rabaan in si maadaama la isxallin waayo madaxweynuhu soo galay macnaha prime ministerkii iyo guddoomiye jawaari is arki karin waxaasoo dhan maadaama la arkay guddoomiye jawaarina inuu iscasiro oo ka adkaystay shacbigu hala kala baxo taagantaa soo maha shacbigu ma waxay ku qancayaan cod gacantaaga in la yidhaahdo hebelaa lagu riday iyo hebelaa lagu doortay mase waxay jeclaan lahaayeen in halkaas santuuq inta la dhigo lagu kala keebay shacbigu rabaan shacbigu labadaba ma rabaan haye shacbigu waxay rabaan in si xal ah oo farsuulin ah oo inta la dhagaysto dhinacyada kadibna xal muhiim ah oo ay ku wada qanci karaan in madaxweynaha gacan arrintaa lagu siiyo madaxweynahana waa ugu yeeri lahaa inuu la kaashado dadkaas maxaan ku idhahdaa haddii ay noqoto xitaa haddii ay noqoto in cod lagu kala baxayo waxaa maamuli karo oo intii ay niman caddaana ama ajaanib ay soo faragelin lahaayeen oo laga yeeli lahaa taasoo wax u dhimayso qarannimadeenna waxaa habboon in dadkaas oo ururada bulshada soomaalida ka tirsan inay iyagu maamulaan oo ma garatay oo dhexdhexaad iyagoo ka ah ay maamulaan sidii baarlamaanku uu u kala bixi lahaa waaya sakariye waxaan kaa rabaa adinku horta xildhibaanaduna mee qaatiin aada u malaynaysaa haddaa istresaan bismillah horta xildhibaanada hadda tiro halkaan laga sheego wax macnaha ma sameynayso xildhibaanadu waa 275 xildhibaan xildhibaan kastana aragtidiisuu qabaa muhiimaddu waxaa weeye 190 maya waxaasi sharci maahan in xildhibaanada magacooda inta lagu soo qodo warqado la yidhahdo codayn qoraala oo muxuu websayada laga codaynayo meelahan ay ku qoran tahay annagu ma garanayno oo qaar badan oo xildhibaanadii ka midna ay mar labaad ay ma garanaysaa iyagoo arrinta ka jawaabaya ay baraha bulshada soo dhigeen waana lagu been abuurtay aad baan horta uga xumaay in xildhibaanada qaranka lagu gafo taa horta aad baan uga xumaay waxa weeye marka waxaan rabaa haddee qofna ma fadhido caawo lama seexanayo nin walba berito si uu tegi lahaa meeshuu rabaa marka kursiga yaa ku fadhiisanaya ilaan maogta xildhibaanadii maxaa lala tegaya ilaan guddoomiyaha mooshin laga wadaa in ama gacantaag ha noqoto ama santuuq ha noqotee maadaama guddoomiga mooshin laga wado meesha haddii la tago maxaa la sameynaya horta centenaria sina muxuu ahaa xildhibaanka hadda labadan xildhibaan waxay soo haystaan qodobka ku saaga qaabka loo codeynayo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkiisi waxay isku haystaan anaa guddoomiye ah iyo adiga mitid guddoomiye anaa guddoomiye ah maxaa umalaynaysaa marka dad sidaas oo laba qaybood baarlamaanku saa u kala qaybsan markay isu yimaadaan oo ay qolo walba leedahay anaa saxa oo anaa jid leh maxaa ka dhalan kara kursiga ku fariisanaya raxmaanow waxaan meelaha inaan hadalkayga hore ku jirta arrinta hadda uu weydiiyey oo waxaan sheegay in mooshinka horta uu muddo lahaa muddo cayiman buu lahaa kursigan waa kursi muxuu ahaayto awoodii ku xigtay madaxweynaha waa laga fakeray in aan ma garanaysaa waddankaani crisis gelin oo paralysis uusan noqon mooshinkiisa waa la cayimo waxaa la yidhi 10 maalmood gudahood
waa in lagu soo afjaraa Haye. haddii laga doodayo haddii la codeynayo waxoo dhan muddadiina way idlaatay marka wax mooshin ah oo hadda guddoomiyaha ka yaala horta ma jirto Haye. wixii waan ah ha oo muxuu ahaay tanaasul ah oo guddoomiyaha iyo saaxiibadiisa lagu qancinayo inay ogolaadaan marka oo bari waa gaar. xaalad ka hadli rabtaan adigu waa gaar annaga marka berri ballan sharci ah oo fadhi sharci ah oo golahu uu leeyahay maba jirto berri maxaad u aadaysaa marka mahada aadistu waa wax kale golaha waxa weeye xarunta baarlamaanka xilligan doona waan tegi karaa laakiin fadhi sharci ah oo berri aan u ballansannahay ma jiro ma aadaysaa fadhiga ballantiisu waxay lahayd habraaciina lama marin guddiga joogtada kama fariisan guddoonku qayb kama ahayn fariinta guddoomiye ku-xigeenka koowaad ma ku tegaysaa bari baarlamaanka fariinta aniga la iisoo diray guddoomiye ku-xigeen koowaad maahayn waxay ahayd fariin kusime anugu kusime ma garanayo cida hadda ma ku tegaysaa golaha waa tegi karaa laakiin kuma tegayo balantaas kuma tegayo kuma tegayo balantaas waayahay waxaan rabaa mar haddii guddoomiye ku-xigeenka uu yidhi kusimaan ahay guddoomiyihiina uu joogo xilkiina aan laga qaadin magacaas ma adeegsan karaa bay kula tahay dinar adeegsiga waxaa ka horeeya horta guddoomiye ku-xigeenku marka ugu horeyso guddiga joogtada in loo soo gudbiyo guddiga joogtadana ay usoo gudbiyaan xubnaha golaha guud ee baarlamaanka guddoomiyahana markaas loo sheego kadibna guddoomiyuhu uu kursi qaato uu fadhiisto procedurkii caadiga uu maro hadda xildhibaankayga zakariya wuxuu tilmaamayaa uu leeyahay maba jirto 10 maalmood way dhammaatay markaa fiirisid cabdi iyo gruubkiisana waxay leeyihiin 10 maalmood ma dhammaano waa saddexdii maalmood uu shaqeeyo sida baarlamaanka aan ka warqabo waa 22 maalmood waa saddex markuu shaqeeyo 10 maalmood weli ma dhammaan zakariya iyo kooxdan jawaari taageeraysana waxay leeyihiin may waa dhammaatay maba jira maxkamad dastuur oo intii loo gudbiyo waxay ogtahay doorashadii Kenya in la isku qabsaday maxkamad dastuurka loo gudbiyay go'aan ay markiiba gaartay maxkamad dastuur oo meeshan go'aan gaari kartana lama dhisin madaxweynayaashii dalkan soo maray dhammaantood waa diidanayeen walina ma samaysna marka yaa kala saaray marka haddaan maxkamadu jirin cid kala saari karta iyagana ay direen oo dhexdoodii guddoomiyaashii iyo xubnihiiba ay kala qaybsameen yaa kala saaraya waayahay haya xildhibaan su'aal baan ku weydiinaya tan hadda ka jawaabaya mugtadailan maran habaabiya shacabka xaaraam way horta tan aan ku weydiiyo maya tan anaa ka jawaabaya shacabka ilan maran habaabiyo xaaraam way aniga wax been ama turjumaayo af soomaaliga ku qor xerosaadka akrinaya idinka fasira ma ogtahay aniga waxa ma fasirin ilaa hadda qodob meesha ku qorana akrinaya cidda wax fasiraysa idinkaa la idinka rabaa asigu wax qodob u akrinaya ma akrinaayo waa fasiraya fiiri hadda qodobka 10 maalmood uu akhriya anaa akrinaya adiga fasir dastuurka miya xerosaadka ha wuxuu leeyahay qodobka 9aad farqada 4 waxaa laga doodayaa loona codeynayaa 10 cisho oo maalin shaqo ah gudahood laga bilaabo maalinkii ka bilaabanaysa xataa meesha ku qoran tahay laga bilaabo taariikhda mooshinka la keenay golaha maalin shaqo marka la yiraahdo ma shaqaba iska ilooba taa loo gaarinba horta wuxuu bilaabanayaa mooshinka maalinka la keeno golaha waxaa la yiraahdaa 275 wasiir diinaari si fiican u yaqaana golaha ma ahan xafiiska jawaari golaha ma ahan xafiiska muudey golaha ma ahan xafiiska mahad xafiiska cabdi cali zakariya ma ahan golaha waxaa la dhahaa 275 xildhibaan markay isu yimaadaan حتى صرت قللا جبل ما فضي يا قلوب محكور ما قولها هرت وحال الله بقول تواتني شنت قولها وزير هذا ما قشوا عشان إلى باتنك وزير هدي قدومية مودي أو هيستا شابدي يصحيحي حافظ كيس أو في الله هركيس كله يهلوجو كيو قرال كلوجو كيو يدت كي تردي مشكلة كانت أو صحيح شابدنا كله تو كمان بلابنس ما كان بلابنس وحكوا قرن فيري وحكوا قرن قدب كلام كنتكو أخينايا وحكوا قرن ما كان بلابنس مالكاس وحكوا قرن قدب قيحي وحجة جرينايا أو كلية موشين كان شرعي موافق سيه قدب بدل الجسو إذا قدوميها ميهن دستوري حراسات كم قيحايا وحوفيرنا التردي اللوجو تلقى يسدح ميلود وميل متى قدوميها اللوجي انت صور waxa kaliya uu ka fiirinaya maalinka waa inta markuu fiiriyo waa tiimbareynaya wuxuu la sugayaa marka hatta gudiga joogtada ka hadlaysan qodobka 12aad qeexaya ilaahay ka baqaya qodobkaasna kuma dhigna gudiga joogtada inay mooshin ka doodaan
guddiga joogtada waxay shaqeeyaan kalfadhiga marka aan fasaxa ku maqannahay iyo waxay diyaariyaan ajandaha ee baarlamaanka mooshinna horta mooshin cugdada laga qabo sax ma aha ya mooshin baarlamaanka shaqo kale ma qabano mooshin waa ka shaqeynaa ninkii u arka mooshin inay qaran dumis tahay mooshin waxaa way soo jeedin waay waayo ambassador ama toban ku soo jeedi ama ku soo jeedi intaan dood qabanayay oo inta maalmihii la soo dhaafay waxaan la yaabay oo ugu yaabku badnaa waxay ahayd waxaa la leeyahay golaha baarlamaanka golaha ninkan guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka ah hadda madaxweynuhu markii uu joogay cadaado markii uu joogay ninkii la oran jiray taabit waxaa xilka looga qaaday asagoo cadaado jooga warqad lasoo saxeexay ayuu xilkii wareegto ayuu xilkii ku waayay madaxweynuhu villa Soomaaliya xafiiskeeda waxaasi xafiiskiisa ma fadhin hadda markaa haddii mudday markii uu xafiiskiisa villa Hargeysa joogo haddii uu mooshin team bareeyo uu saxiixo aysan markaas ka bilaabanaynin inay golaha ka bilaabanayso macnaha golahu muxuu yahay marka horta waxaan rabaa inaan mid caddeeyo golaha sida uu sheegay saaxiibkay xildhibaan cabdi cali waa 275 waa sideeda speakerka ama guddoomiyaha baarlamaanku waa shir guddoomiye shirka kaliya guddoomiye cod hal cod uu leeyahay guddoomiye ku-xigeenkuna sidaas oo kale guddoonkana waxa waaye guddiyo oo baarlamaanku qaab ay u shaqeeyaan oo guddi walba uu chairman ka mid ah guddoonka noqdo way kala qeexan tahay codka sideeda waxaa iska leh xubnaha baarlamaanka guddoomiyuhu ma laha guddoomiye ku-xigeenka ma laha guddiga joogtada codka waxaa iska leh xubnaha baarlamaanka ee ah golaha baarlamaanka 275 iska leh laakiin meeshii waxaa taagan dadkii chairinka u ahaa oo speakerkii ahaa iyo speaker ku-xigeenkii iyo speaker ku-xigeenkii labaad laba dhinac martay muddana dhinac maray guddiga joogtada laftooda saasoo kale baarlamaanka xubnihiisana saasoo kale ku kala qabsana tiya marka waxay keenaysaa in wax walba laysku qabsado taas kaliya ma waxaa laysku haystaa middaas oo codbixinta laysku haystaa waxaa laysku haystaa maalmihii way dhammaadeen iyo ma dhammaan waxaad muddaa marka is-haysasho laysfiirsanayo oo dhinacba dhinac kale uu fiirsanayo laakiin sharciga aan la fiirinayn danta iyo maslaxadda lama fiirinayo danta iyo maslaxadda in baarlamaanku saa u kala qaybsanaado kuma jirto danta iyo maslaxadda dadka Soomaaliyeed ee maanta sugaya qarankan inuu dhaqaaqo wax u qabto waxa weeye ma sugayaan taas maanta waxaan meelo dhaweed waxaan akhrinayay article Guardian ay qortay oo gabdho Soomaaliyeed oo Indonesia markay waxay cunaan iyo waxay sameeyaan waayeen inay jirkoodii gabdhihii Soomaaliyeed gadanayaan kuwa kale dibadda jooga ee Soomaalidu qaxday ee 3 milyan oo qof ah maanta waxay wada taagan yihiin war dalkii nabad ma la helay dhammaantood waxay rabi lahaa inay soo noqdaan mas'uuliyaddaas marka xildhibaanada ila fadhiya iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ma waanay qiimeyn karin dadka intaas la eg ay mas'uulka u yihiin ee shalay doortay ee maanta aan ku haysan mid ka mid oo iyaga lagu haysto xilkiisa ma jiro waaya aad baa umahadsan tahay xildhibaan Zakariya dooda horta sida muuqata dastuurkan waa midkii muddo lagu hayay warbal ha la isku hagaajiyo maanta dhibaatada taagan waa u jeedeen dastuur 120 article ka kooban 35 warqadood ka kooban ayaa lacag maaragtay la leeyahay intaasoo milyan haddaan la helin la iskuma hagaajin karo 10 qofood oo sharci yaqaanaan inta la isu keeno ay samayn karaan ayaan maanta isku haysanaa faqradda hebel aqligu ma shaqayn karaa marka oo aqligu ma xasaayana seen dadkan u badbaadino maxaa barita la sameeyaa bismillah horta saaxiibkii Dinaari wuxuu ka hadlay dhibaatada haysta wadanka iyo waxa la soo maray ee wada ogsoonahay dadku hadday istilaan oo ay kala aamin baxaan waxa kaliya oo horumar ay ku sameyn karaan oo dawladnimadooda ku xaqiijin karaan wixii ay ku heshiiyaan inay ilaaliyaan oo nin walbaaba uusan dhihin maalinka aniga aan rabo hal ii bedelo inuusan dhihin taas horta dawladnimo ku gaari karnaa dastuurkan hadda oo kabka ah oo haysano hadaan isaga u dulqaadan inaan ku qaracno hadii aan danteena ka arki weyno midka aan biri sameeynayna kuma shaqeyn karno dawladnimada waxa weey saan ku xaqiijinaa waa adkaanaysaa inaan la xisaabtano dadka nala midka ah hadaan u laabto wixii hadda aan ka doodaynay mooshinka waxa horta qabtay guddoomiye ku-xigeenka koowaad guddoonku waxay leeyihiin 10 wuxuu leeyahay 10 awoodood guddoomiyuhu qodobka muxuu ahaa 7 xeer hoosaadka
wuxuu matalaa kuna hadlaa magaca golaha shacabka, taas oo aan ka hor imaaneyn ama wax u dhimayn hanaanka sharci dejinta iyo go-aanada golaha qaadan doono aan ka hor imaaneyn. marka uu gudoomiyuhu uu qabanayay mooshinka wuxuu horta ku qabtay inuu matalayay golaha iyo fadhigu labay kaliya. xildhibaanada qaar hadda saaxiibkii Cabdi Cali si fiican uga hadlay, laakiin waxaan arkayaa ku doodaya dhahaya fadhiga baa golaha la yiraahdaa. dastuurka cadeynaya in golahu yahay baarlamaanku yahay laba gole, qodobka 50 baa cadeynaya inuu laba gole ka kooban yahay. golaha shacabku wuxuu leeyahay fadhiyo, waxa marka la geynayo oo marka laga doodayana fadhiga la geynayaa, laakiin waxa qabanaya waa golahana waxa uu qabanaya gudoonka. sabtigii marka la baajinayay marka wixii la isku hayay laba ahayd, laba ajende oo midna yahay Buqla Xaawo oo gudoomiye Jawaari iyo guddiga joogtada ay soo dhigeen, midna uu gudoomiye ku-xigeenka koobaad muxuu ahaayay uu soo dhigay. waxaa la kala joogay mooshin ma yaalo iyo muxuu ahaayay mooshin baa u codeynayna. madaxweynaha joojiyay. madaxweynaha marka waxaan filaynay inuu meel dhexe oo arrinta isku keeno oo ah in muxuu ahaayay qolada tiri mooshin nagama yaalo ma ogolin inuu ku qanciyo in loo codeeyo oo Jawaari uu ku qanco meeshii iscasil la yiri in lagu qanciyo muxuu ahaayay inuu ogolaado in waqtigii oo dhamaaday oo ogolaado in loo codeeyo. qolada kale lagu qanciyo in waqti taagan ajenda yaalla inaan aysan dhihin loo bedelo dastuurka iyo xeroosaadka, iyagoona ay ogolaadaan sida xeroosaadkii dastuurku ay qabaan in loo codeeyo. dhib yari bay ku dhamaan lahayd. madaxweynuhuna muxuu ahaayay madaxweynuhu ka fiiriya hal meel ma ka fiiriya maadaama gudoomiyihii baarlamaanka oo muran galay asaguna uu jeerkii yahay baarlamaankiina uu kala qaybsan yahay. ama ka fiiriya baarlamaankan waxaa lagu badbaadi karaa in hadhow haddii uu shir gudoomiye xataa qola ay ka hor imaanayso qalalaasa imaanayso ama meeshaas ka fiiriya markuu leeyahay iscasil. dowladnimada horta inaan gaarin inaan muxuu ahaayay xaqiijina marka aan rabno waa inaan ku qanacnaa qofkan haddii aniga aanan rabin uu sharciga inuu hogaamiyo xaq igu yeesho waa inaan ogolaadaa. ma garatay? golaha shacabka gudoomiyuu leeyahay. Jawaari xildhibaanadu ma wada dooran, qaar baa doortay. kii doortay iyo kaan dooranna wuxuu ku qancay inuu gudoomiye u noqdo. haddana kii ka codeeya iyo kii muxuu u codeeyaba waa inay ku qancay inuu gudoomiye u noqdo. aad ma asatahay. waxaan rabaa gabadhii barnaamijka waa gaari doonaa. waxaan rabaa codka qarsoodiga ah iyo gacan taaga horta waxa loo qeexay markaan fiiriyo waxa weeyaan codkan qarsoodiga ah qofka xor buu yahay markaas cidna kama baqayo tig uu siinaya xalaal ninka uu rabo si xalaal ku dooranaya. laakiin markii gacan taag ay tahayna ninba ka baqaya. xukuumadan 40 iyo dhowrka ka kooban ee ra'iisul wasaare Khayre uu horkacayo haddii gacan taag la yiraahdo 40 labadooda xilkooda ilaashanayaan marka waa inay gacanta taagaan. marka soo ma haboona in macnaha qanaca dadweynuhuna sidaa wey maadaama saa loo kala sifeeyey. xildhibaan adigu mukraalle ma ku tahay in barito si dhibka u yaraado la yiraahdo dagaalka joojiya codkii waa kana haye Jawaari ku qanac muddo ku qanac in la yiraahdo raalli ma ka tahay adigu? aniga waxaan raalli ku ahay sharciga dastuurka iyo xeeroosaadka sharciga xasan cadi ikaad aniga ma dhaafayo sharci dastuurna ma dhaafayo xeeroosaadna ma dhaafayo traafikada cali gaab sharciga uu ku sheegaa raaci laamiga hadaa ma ku wadayst hadaa ay dhees xeer jajab ku soco niyo ani raalli ma ka noqonaa. dalkan waxaa ugu soo noqday in sharciga la raaco. sharciga hadduu daawo qaraar yahay oo Cabdi Cali uu leeyahay banaanka fariiso ani banaanka ilaa fariisiyaan raalli ka ah. xeer jajab niyo dal laguma wado. dalkan waxaan dhibka kaga soo saarayna maya adiga ani ninka hadda marka hadla adaan kula hadlaaya adaa hadda waxaa keentay xeer jajab ha lagu socdo. xeer jajab maahan sharcigan ani waa qabaa. fiiri aniga hadaay maxaa ku yiri taqaana anugu ma kala jecli in cod santuuq la geliyo iyo in maxaa la yiraahdaa gacan taag ay noqoto in yiri wallahi waa ii siman yihiin laakiin 275 xildhibaan taladu igala dhaxaysa. aniga hadda waxa aan halkaan sheego caawo ma ahan waxa xagga ka dhici doona waxa aan rabana ma ka dhici doonto laakiin aniga waxaanan ogolayn waxaana soo gaaraya haddii berri 10 xildhibaan way ii kaadaan dhameeyo haddii 10 xildhibaan berri oo saaxiibaday ah intay mooshin keenaan yiraahdaan waxaan rabnaa kii isu yeeridda oo la saxay sida xeeroosaadka qodobkan ay ku qoran 29aad aniga Cabdi Cali waa inaan ku qancaa waxa go'aanka diidi kara ama ogolaan kara 275 inta ka timaada horta gacan u taagaysa
ma sanduuqeenniyaan joogayna mise waa iska bedelaynaa jawaari asagaa keenay wax kastoo xeeroosaadkan ku yaala 10 xildhibaanaa keeni kara mooshin kadibna golaha u codaynaya golaha meeshuu markaas isku raaco yaa hoosha hore loogu soconaya jawaaraa xeeriyey cabdi cali ma xeerinin geedka hadda sharci hoosaadkaana akhri waxaa ku saxiixan maxamed cismaan jawaari cabdi calina ma ku saxiixina zakariyana ma ku saxiixina marka nimayo yaan la wareerin dadkana yaan la marin habaabin sharcigeennana aan ilaashano waxaa laga yaabaa maanta inuu hebel suur rabay uu la muuqdo ani jawaari shalay dadkii wax ka doortaa sharciga noo akrinaya may waa qoran yahay niyo sharcigan dadka dhan ha loo qaybiyaa ani hadda markii ugu dambeysay dood galay af Soomaali ku qoran yahay Soomaalida ha loo qaybiyo ninkan intellectual waa uma baahna zakariya ani inaan u fasirno uma baahna waxaan rabnaa qodobka uu zakariya sheegayo oo leeyahay cod qarsoodiye waa iyo qodobka adigu aad leedahay saddex qodob weeyaan midii la rabaa la dooran karaa adiguba qodob soo dariishanay kan qodob soo dariishanay aqligu inuu shaqeeyaan rabnaaye maxaa see aqligu u shaqeyn karaa maya aqligu wuxuu ku shaqeynaya zakariya wuxuu rabaa qodob inuu inkiro oo qariyo laakiin aniga qodobkaas inuu jiraan sheegaya hadhow haddii xildhibaanada meesha imaanaya qayb ka mid ay isticmaalaan asna ma hor istaagi kara anna ma hor istaagi kara way aan zakariya siin haye zakariya qofku leeyahay ma xaqiri karo aniga mugtahay haye zakariya aan siin qodobka horta uu ka doodayo waa qodob dastuuriye dastuurka waxaa laga bedelay marka loo badan aqalka sare la keenaa waa in labada gol ay wada fariistaan waa in 3 dalool 2 ay u codaysaa bedelisteeda shaqo sahlan maaha nimankaan hadda saan dareemayo uma socdaan waxa weeye waxaa rabaa in la dafiro dastuurka la dafiro xeroosaadkan la bedelaynaa maxaa ku kalifaya horta waxbaan bedelaynaa waxaan waa sharci siduu u qoray in loo raaco waxaa ku khasbaya maxay waxaan rabaa su'aal hal mid oo maran habaabina dastuurka waxaa fasiraya xeeroosaadka xeeroosaadkana asaguna lama joogin horta miduu gar ku leeyahay xeeroosaadkan 23 Oktoobar 2013 yaa la sameeyay aniga jawaari waxyaabaha aan ku eedeynaa waxaa ka mid ah 133 xildhibaan oo zakariya ka mid yahay waxay xaq u leeyihiin xeeroosaadkan baarlamaanka maalinkii la furay golaha shacabka uu soo galay bishii ugu horeysay xeeroosaad uu ku qanacsan yahay in uu wax ka ansixiyo jawaari waxyaabaha aan ku haysano oo lagu eedeynaa waxaa ka mid ah waa ninka kaliya ee sharciga burburiya waa ninka kaliya aan ogoleyn sharci in dalkan lagu dhaqo asagaa ninkaan dulmay hadda waxa uu ka qaylinayo xeeroosaad uusan shaqo ku lahayn oo baarlamaanka 9aad uu lahaa yaa hadda lagu qasbayaa waa dhibaya laakiin asagaa sharci ilaa xeeroosaadka cusub ee baarlamaankan 10aad uu ansixinayo oo jawaari hoostiisa yaalo oo sanad laga leeyahay inuu golaha keeno waayahay waxaan rabaa gabagabadii guntii barnaamijka diinaarina waan sii doonaa berito hadda maadaama walwalka shacabka oo qabaa sida diinaar uu sheegay ay tahay maxaa dhici doona berito sidee wax u dhici doona maadaama la leeyahay adinkiina aadnan iswaafaqsanayn adiguna aad rabto in gudoomiyaha baarlamaanka kursiga kore uu fariisto asna uu rabo gudoomiyaha baarlamaanka inuu inta xildhibaanada dhex fariisto gudoomiye mudday inuu dhex fariisto haddii la rabo labadaba haddii la rabo cid tanasuli karta hadda ma ay jirtaa oo tanasulka la imaan karta adinku allahba ka dhigay tanaasulka waxa weeye gudoomiye jawaari wax badan buu tanaasul sameeyey markii laga soo bilaabo maalinkii mooshinka la keenay moshinku stage-kii koowaad buu ku jabay oo lambarkii laga rabay uu ka gaari waayay ayasoo gaari waayay oo gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad oo uu qayb ka ahaa guddiga joogtada markii warbixinta la siinayay oo ay markhaati fureen kaamirooyin hortooda ay ka markhaati fureen ayuu haddana wuxuu markii labaad uu ta soo hadlay uu yidhi muxuu ahay moshinku waa ansax gudoomiyuhu waa ka tanaasulay oo waan kala hadalnay waan ku qancinay inuu aqbalo wuu aqbalay waxaa yimid guddigii aqalka sare way la fariisteen soo jeedimahooda waxaa ka mid ahaa inaan xeeroosaadka dastuurka la qaato waxba aan laga bedelin gudoomiyuhu uu ku saas qanac ku ahaado wuu soo dhaweeyey waana ka warreynay aad baan uga warreynay arrintaas dhinaca kale wax ka socon waayeen marka waxaa keenay in la kala istaago waa midaas haddana cabdi hadalkiisa waxaa ku jirtay waxbaan bedelaynaa oo 10 mooshin aan ku keenaynaa waxa weeye intaan bedelba la gaarin in la tago meeshaan sharci darraa halkaas aan u taagana ma intii xiisad ay taagan tahay ma dastuurka iyo xeerku maxay ka qorayaan ayadoo xiisad taagan tahay wax ma la bedeli kara waxba lama bedeli karo aqliga waxaa taa kaa yeeli maayo jiifyaano bannaan
saacadaan raba hadday qancin weydo siduu dastuurku u qoran yahay waddanku see ku soconaya haddaanan ku qancin waxa aan qorannay see hadhow isku xukumaynaa ma garatay aayaddan sidaan mar rabay ha la ii bedelo wax shaqayn kara maaha waayahay su-aasha aan ku weydiina intaan ambassadorka siin miyay jiraan qodobo dastuuri ah oo qoraya ama xeer hoosaadka ha noqdaan iyadoo oo xiisadu taagan tahay oo mooshin wax walba taagan yahay in la yidhaha xeer hoosaadaa la bedelayaa macquul mata noo akri warqadana waad haysataayoo oo dastuurkii buuggii ma wadatid adigu kiisa hadaarto kaaga akrinaya waa soo qortay buuggii inaa qaato uma baahna qodobka iyo anfacayaan soo qaatay qodobka 9 farqadiisa 3 waxay leedahay codbixinta qoraalka ah ama magac u yeerida tii sanduuqa ahayd oo dastuurka uu sheegay oo xeer hoosaadkan uu sheegay in la bedeli karo qodobka 3 wuxuu leeyahay waxa la qabanayaa markuu gudoomiyaha golaha ya ama ugu yaraan 10 xubnood ay soo codsadaan goluhuna go'aan ku qaato ma garatay 10 xildhibaan ama gudoomiyaha durab soo jeedinay wuxuu leeyahay meeshii sanduuq ahayd qodobkaasi ma laakiin qodobkaasi wuxuu ka hadlayaa maya qodobkaasi wuxuu ka hadlayaa soo jeedinta caadiga ah oo macnaha laakiin waxaa laga hadlayaa iyadoo mooshin uu taagan yahay farqadlan ku akhriimahne qodobku xaabal dhahaaba noocyada codaynta iyo siyaabaha ay isu bedeli karaan waa qodobka 9 noocyada codaynta la dhahaa waxaan rabay inaan ku akhriyo mogtahay haddaan sharciga maanta dhan akhris waqti badan naga lumaayo waxaan kaaga soo qaatay kaliya kii sanduuq ahaa marka la bedeli karo farqada 3 cadaynayso waxay u baahan tahay in gudoomiyuhu laftirkiisa uu soo jeediyo oo yiraahdo meeshii sanduuq ahayd sababta loo yeelana qarasha ku jira sanduuq marka la dhahay waa warqado la daabaca waa in 3 warqadoodan kala duwan la daabaca waa in haddii la ismari waayo codka labaad warqad kale loo daabaca ma garat qarashkaas isagoo og miisaaniyad inay isugu jirin wuxuu dhihi karaa gudoomiyaha codbixintii sanduuqa waa laabaynaa yaa ka ogolaanaya ama ka diidaya golaha way cod u gelinaya marka wuxuu leeyahay maadaama aan qarash aan u hayn waxa idin soo jeedinaya in gacantaag loo coday golaha u dhow waxay leeyihiin waa diidna ama waa ogolaanay inta loo taagay sakari waxaad ka dhahay balaasoon ay yiraahdaan waa loo codaynaya qodobkan waa qodob dastuuri ah horena uu sheegay in hadda kula laaban wax macnaha ma sameynayso qodobkan waxaan nala leh baarlamaanka oo dhan baa ka dhaxeeya waa in aqalka sare uu yimaado waa in labada gol ay wada fariistaan markaas laga doodi karaa wax laga bedelayo dastuurka hadii kale xilligan markii ay yimaadaan labada gol wada fariistaan ayay wax ka bedeli karaan dastuurka golaha shacab kaliis wax kama bedeli karo golaha shacabka wax kaliis wax ma bedeli karo xasan cadde hal mid oo kala raba inaan saxo qodobkan aniga hadduu sanduuq noqdo xataa wax kama qabo walaalkay laakiin waxaan ka hadlayay in kaliya in dadka loo ifiyo in la bedeli karo mid kale anaga jawaari mooshinkan waa ogolaaday niyo jawaari markii 10aad 20aad u hadlaaya haddaan la isu dhasaamo horta odayga waa wareer asagaa yiri maxaa la yiraahdaa mooshinkan waa buray wuxuu jabiyay qodobadii lagu eedeynaa qodobka 75aad ee xeerosaadka ayuu jabiyay mooshin waxaa lagu furi karaa golaha hortiisa oo kaliya mogtahay qodobka 75 golaha hadda mooshinkii ma furmin ما بفرمين بي إلا قولها لقي ما بفرمين بي واحد طبعا كلا فيرين كرت ملها فيري فرق هذا السد هذا طبعا كيما ما بلعبن بي إلا قولها لقي أو موشين كلا قيبي أو حل دبان هذا الله قيبي قولها وحال ده الله بقول تواتني شد سهل ده يكون شيء عد كلا لما بتوش كربا نيو قدب كحيرة وسوق بكبين عنو قي حياة وسوق بكبين فرق هذا السد هذا قدب تواتني هذا وحل ده بيل كلا لقوا وفر كربا جواري إنه بدي جوبت ينقولي يسكفره ويرى هذا وابور شرعه بالجبيه مني هاي دينار وحار هذا نسوق بكبيني أنت أنا ربا واحد تاه إن كل بقى إلهي وحن كبري إن سيد حقه عدالته تحي إنه دل كانوا فيه إن لبعتنا إكسر محمد أنا دوني إن أنقلنا أيه حد وحد مداول ولدتك أقوياء هذا وكقبان إن خلاف كبرلمانك مركا هل كان قدام بنتي هذا شعبي كترجمية ما حد سوى جدين له بريتو سوى حلقة بدبادي كرا بسم الله الرحمن الرحيم حسن وما سنتهاي مركو الرئيسة وحن ضدك الصوماليات جودها يدبد ملك استوي جوجان أن كعصنا إن هرت إلهي بريان أو إن ما ركتي لبعتو أنا دعين بريتو أو حل إلهي وسجى كيني كرا إن حل هرت إلهي أوكيرو وإلهي ويدسنا ضدكنا إن أي عاوة إلهي بريان
sababtoo nabada loo baahan yahay dawladda loo baahan yahay waxa la rabaa in hore loo socdo taas ilaahay in la weydiisto oo la baryo caawa baryada ilaahay waa maaragtay lagu si weyn loogu guuleystaa qodobka kale aan raba inaan ka hadlo waxa waaye muhiimka ah waxaan horta ka xumahay in gudoomiye ku-xigeenkii koowaad gudoomiye ku-xigeenkii labaad ay miidiyaha isticmaalayaan iyagoo mas'uuliyiin ah waxaan kaloo ka soo xumahay in gudoomiye Jawaari uu madaxweynihii dalka oo ah astaantii qaranka uu miidiyaha u marayo eedeyntiisa xitaa waxay ahayd baarlamaanka dhexdiisa haddii maxaan ku yidhahdaa isaga hor fadhiya isaga u sheego yidhahdo madaxweyne maaragtay arrintaasi waa qalad nama qabato inaad sidaa tiraahdo laakiin inuu miidiyaha isticmaalo aniga dhegaygaan ku dhageystay waa arrin aan fiicnayn horta marka ugu horreysa waxaan ka codsanaa guddoonka baarlamaanka ama guddoomiye ha noqdo ama guddoomiye ku-xigeenada ha noqdaan ama xildhibaanada ha noqdaane in isticmaalka miidiyaha la joojiyo colaaduu sii hurin karaa wuxuu sii hurin karaa isfaham la-aan iyadoo laisu soo dhawaan karay oo wax la sixi karay waa sii fogeyn karaa taas horta in meesha laga saaro baaqa kale waxaan u jeedinayaa dadka waxgaradka ee soomaalida ah ee dalka gudihiisa joogo xitaa dibadda kuwa joogo contribution ay ku heli karaan war dalku waa naga dhexeeya qof walba in uu wanaagga ka taliyo uuna ku guubaabiyo xildhibaanada cabdi wuxuu ka yimid daduu matala zakari daduu matala saasoo kale dhammaan daday wada matalaan in lagu guubaabiyo inay xal helaan oo ay arrintan ku xaliyaan sida sharciga iyo dastuurka u qabo haddii taas la heli waayo in lagu xaliyo in dad waxgarad ah oo aqoonyahan ah inta ay imaan lahayd dad cadaan ah ama ajaanib ah oo daris ah in loo tago annagoo dawladda intaas dawlad soo ahayn waxay nagu tahay fadeexad iyo cayb sida hadda uu xasan sheegay haddii mar kale ay dhacdo in aan ku heshiin weyno waxaana loo arkaa dad aan isxukumi karin waxaana dhici karto in ay dhacdo in na la geliyo wax la yidhahdo trusteeship inna la geliyo ama maxamiyad dhibaato weyna keenaysa dalkana u keenaysaa waxaan leeyahay marka danta iyo maslaxadda ha la fiiriyo madaxweynaha waxaan leeyahay ha ogolaado in gacan lagu siiyo ha ogolaado in xalkan lala doono ha ogolaado ha noqdo odagii qaranka in uu isu soo jiido dhinacyada maanta isayo haddii waxaan aan aaminsanahay haddii si daacada loo galo oo dad wax garanayo oo culummadu ay ka mid tahay oo aqoonyahanku ka mid yahay oo siyaasiyiintu hore ka mid tahay ay u istaagaan arrintan arrin ka waaweyn ayaa horey loo soo xalliyay waa la xallin karaa waxaan arkayaa in mugdi keliya yar uu jiro oo qof walba uu leeyahay adigay ku sababsanaysaa oo adigaa meesha ka baxayo haddii aad taas ogolaato xildhibaanadana waxaan leeyahay xildhibaanadu soomaaliya mas-uuliyadda idinka saaran maanta haddii aad marxaladan aad ku kala qaybidaan haddii maanta ay dhacdo soomaaliya uma baahan xabad nimanka ku gurdaynayo oo dhahayo xabadan aan ku dagaalamayna iyagana waxaan leeyahay dalkan xabad uma baahno muqdisho xabad uma baahno dadku waxay u baahan yihiin dawlad waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin adeeg waya ilaahay xabad iyo naga hayo cabdi waa soo gab waqtiga farsamayaqaanka farsamayaqaanka meeraalla farsamayaqaanka ayaa gacanta ii haatinaya إن شاء الله تعالى إله وحن كرتين إن دجالدي يعلاده يوحي عن صوم مرني أو كلا إن إلهي تبلنا وجعلين إلهي بنكبريه إن شاء الله تعالى إن برنامج كينا داود ريال وأنا أنت وحن أدقم هاد علينا يا فرسمي يقان ذا إن السيدة حجر لا أنت عاو إنه كل الرجوي فرسمي يقان عبد الرحيم حسين عيلاوي فرسمي يقان عبد الرزاق عمر إيو فرسمي يقان ذا جوجا استوديو تلفزيون سومالي كبر مقالة لندن عبد السمد بشير بعر إيه فرسمي قناة كلا تلفزيون runtii waxaan si gaar ah aad ugu mahadcelinayaa xildhibaan cabdi cali xasan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ambassador Cabdiraxmaan Nuur Diinaare oo ah rugcadaas siyaasadeed wax badanna saxaafadda ku soo jiray iyo xildhibaan Zakariye Xasan Sheekh Cali ayaan u mahadcelinayaa waqtigooda qaaliga ah ee ay caaw inoo soo hureen daawadayaal dhamaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh